أدخل الجنة فقد فاز قفك لقبت باذي نارتا جنة لقليو قفك أيا ليباني قف والبعناga naga mita isweydii waa maxay hadafkaaga noloshan maxalkee ayaad rabtaa 10 sano kadib haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku gaarsiiyo inaad istaagsanaatid iyo wix la mid ah hadaf yeelo halkee ayaad u socotaa iyo wix la mid ah hadaf qof walbanaga naga mita isweydiiyo walaalayaal diinteena islaamka ma aan oo kaliya diin salaad iyo soon iyo zakka iyo wix la mid ah waa may haddii la yiraahdo maanta dadka dhan salaata tukadaan masaajidka una fadhiyaan yaanan diktoor la noqonin yaanan guryaha yani iyo wix la mid ah cilmigaas yaanan la baran iyo business yaanan la baran walaalayaal dadka haday xanuunsadaan yaa daaweynaya dad ma daaweynayo burburki iyo jahliga baaba ku sii ziyaadaya dalkeena labadaba waa cibaada in adduunka aad baratid aadan isdhiibin aakhirana ina u shaqaysatid sida ayaa loo baahan yahay adduunka marka la yimaado waa inaanan aqoonin caajis iyo wix la mid ah waa may waa inaan wax barana waa inaan wax aqina waa inaan xirfadaha kala duwan aan barana qof walba anaga naga mid ah iyo sidoo kale salaad iyo cibaadadana waa inaan ku dadaalnaa labada waa inuu qofku isku haystaa ilaahay wuxuu leeyahay rabbana aatina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة الدنيا آخر قفك وإنه سكو هيستا الدنيا كدلال آخرنا سيدو كلا وشيء هذه مهمة هدف له هدف مكة ديالتنا آمن قوانسو هدف كاس إنا داري كرتد قف والبا أنا متا وحو نقون يا وحا آمن سيهي آمن إنا نقون كرتد dad yani wadamada kale way noqdeen ayagana way yihiin dhalinyartooda ayaa horumar u keenay dalkana anaga buuna sugaya is-aamin adiga kalsooni iyo wix la mid ah lahow waa anaga dadka loo baahan yahay inaan bedelno aan aaminno arintaas waa shay aad iyo aad u muhiim midka saddexaadna waxay tahay la imaw ficil hadafkaaga iyo hadafkaaga riyadaada iyo riyadaas inay rumowdo waxa u dhaxeeya ma taqaanaan waa ficil aan ficil la imaano dhaqaaq iyo wix la mid ah aqri iyo wix la mid ah labo midka saddexaad waxay tahay sabar ayaa loo baahan yahay adkaysi ayaa loo baahan yahay ha isdhiibin magana ha isdhiibin hana ogolaanin ina isdhiibtid waa ku fikirtaa ha laakiin dib u istaag iyo wix la mid ah guul darada waa inaad ogaatay wado aanan yani guusha ku jeeyn karin wado kale ayaad qaadaysa oo kaliya ha isdhiibin waa shay aad iyo aad u muhiim ah saddexaad waxay tahay hadaf inaan lahaano midka kalena waxay tahay afaraad loo baahan yahay in aan waqtigeena ka faa'iidaysano walaalayaal su'aal baan idin weydiinayaa anaga iyo dhalinyarta wadamada kale maxaa inoo dhaxeeya labadeenaba waxa haysanaa waxay tahay 24 saac anaga waxa haysanaa 24 saac ayagana waxay haystaan 24 saac waa maxay waxa inoo dhaxeeya waxa kaliya noo dhaxeeya waxay tahay midna waqtigiisa ayuu nidaamiyay waqtigiisa ayuu qorshaystay wax wanaagsan ayuu sameeyay midna musalsal ayuu ku mashquulsan yahay wax la mid ah يعني وقتينا وإنا كفائديسنا وقتينا كفائديسنا وقتيga waa nolosha sikin walba wuxuu sameeyaa waa daqiiqadahana waxay sameeyaan saacadahana waxay sameeyaan maalmahana wuxuu sameeyaa isbuucina wuxuu sameeyaa waxay tahay waa bilkana wuxuu sameeyaa waxay tahay waa sanadkana wuxuu sameeyaa waxay tahay waa qarni iyo wax la mid ah sikin haddaad dhumisid waa noloshaadii oo aad khasaarisay iyo wix la mid ah waqtigeena aan ka faa'iidaysano aan nafsadeena u faa'iideyno ummadeena aan u faa'iideyno arintaasna waa arin aad iyo aad u muhiim ah sidoo kale waxaa loo baahan yahay waxay tahay midka kale aan idinku dardaarmayo waa in midka daay aan sheegayay dadka aan wax u tarno annaga ayaa يعني dad kale nooma maqna walaalayaal lagama yaabo in qof kale uu noo yimaado ama wadamo kale ay noo yimaadaan maanta amni iyo barwaaqo ay noo keenaan waa may annaga ayaa loo baahan yahay inay iscaawino midba midka kale inuu caawiyo midba midka kale inuu wax taro taana ajr iyo xasanaad ayaad ku helaysaa insha Allah ta'ala mar walba dadka aad u naxariisanaysid xayawaanada aad u naxariisanaysid dadka aad u naxariisanaysid iyo wax la mid ah oo dhan adigana waxa ku naxariisanaya Ilaahay subhanahu وتعالى أرنتاسنا وأرن آديات مهمة سيدو كلا ولا ليال والدينتنا أنبار ونقنا والدينتنا أنبار ونقنا قف والبوالدين تيسنول بارها ونقضو سيدو كلا وحنا يدو كتر دار ما يا وحيتاي أو مهمة
in aan badino jacaylka aan jecelnahay waddankeena walaalayaal jacaylka waddanka waa cibaada ajar ayaa lagu helaa nebiga sallallahu alayhi wasallam makka markuu ka tegayay muxuu yiri mataqaanaan makka kama bixi lahayn haddii qoomkaagii aysan iga saari lahayn jacayl uu jeclaa makka meeshuu ku dhashtay iyo wix la mid ah annagana waxaa loo baahan yahay waxay tahay in aan muujino jacaylka aan jecelnahay dalkeena in ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ugu dhowaano sababtoo ah waxaan nahay dad boqolkiiba boqol muslimiin ah ku hadla luqadaha adduunka midka ugu quruxda badan af soomaaliga deganna magaaladan quruxda badan aniga wallaahi waxa aan ku faraxsanahay waxay tahay mar walbana aan dhahaa alxamdulilah waxay tahay inaan ahay qof soomaali ah ku hadla luqadda soomaaliga sidoo kale leh asxaabtan aad iyo aadka u quruxda badan adduunka China iyo America lagama helo يعني أصحابتن قروحدا بدن أكل مية دينتا إلهي سبحانه وتعالى وناقا إي خيرك سيدا ودقيستان محانا قروح بدن ولا ليال هل مت أيالو باهيهي قف والبأناقا ناقا مت وإنو هذا كذب أو سبق قروح بدن أو كبحيا دالكيسا anigoo jooga Nairobi waxaan raba waxay tahay halkaan u soo socday Instagram ayaan waxaan rabay sabir inaan geliyo kadib Google ayaa waxaan ku qoray waxay tahay Mogadisho waxa ay soo baxay mataqaanaan ana isku naxayba waxa ay soo baxay waxay tahay sabiro aad u moodid yani dadkan dagaalka labaad ee adduunka ma hadda ka soo baxeen yani yaa loo baahan yahay inay bedelaan arintaas وأنا سوماهن مت والبأناجا نجا مت هدو فافيو سبيرة قروح لبضن دلكينا عنتوين كفرش كايجيبي معان كبضن يوحلا مت هدو فافيو وناجا إحسان كيوحلا مت الدون كأودن ميديا أودن أنا جاي قبنينا وشيء مهم قف والبو قات يعني دلك هذا مسؤول كأه أذانا لو بايع قروح دلك إن أو هرمريو أو جرسيو أدونك أودن ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى هايذن حفظيو ولا ليال إله سبحانه هايذن حفظيو إن شاء الله تعالى أن أسكسو دعينو والله آدي بإذن جعلهي إلهي وحن ويدي سنة يا عز وجل سيدا هل كان نوغو كلمي إنو نوغو كلمي جنديسا إلهيو سيدا هل كان نوغو كلمي نوغو كلمي جندادا إلهيو وحنا هاي ددرت هذه هل كان كلمي إلهيو وحنا هاي ددرت هذه اسكو جعل إلهيو تاوغي سنوغو نحريسو ولا ليال أنا بسدينا إيا دلكينا أو دعينا صوبتو دعوة معجزات كإلادة هاي متقانا نبي موسى عليه الصلاة والسلام أيها هبين يؤتمد وحي كتغ وحيتهي إلهي سبحانه وتعالى وحاد إيويديسا إنو إسي عروه إنو إلما إسيو نو موسى توسى أيو إلهي سبحانه وتعالى ولها الدجري نو موسى إلهي أيو لها الدعوكي وحيتا إلهي يو قبنا وحيكو ويديسا نيسا إنات إلما سيسد كذب إلهي سبحانه وتعالى أيها أجواب وحكوي وحيتهي أنيقا قبنا وحان أقرى وحيتهي إن أيسن وحبت لينين امتحان ويانا كو صبغتو نو موسى قبل أيو شيء قبل ويسك بحذي هذا مدة كذب مالن كلا يؤتمد وحيكوتي وحيتهاي إلى سبحانه وتعالى يويدي إنه إلما إسيو أنا إلما أباهنهاي هذا نو موسى مغلبات أيو إلى سبحانه وتعالى ويدي وحكوي وحيته إله يو إلما يكويدي سنيسا إله وحوجا وحيتهاي قبلنا وحن أقري إن يسن وحبدلين خلاص ويسكول مات كذب نبي موسى muddo kadib wuxuu arkay gabadhii oo cunug yar haysata wuu weydiiyey wuxuu ku yiri waxay tahay cunugan ma adaa dhalay waxay tiri haa noo musu isku yaabay yani ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri gabadhan waxba ma dhalayso cunuganna ayada ayaa dhashay waa maxay sirta ku jirta ilaahay ayuu weydiiyey wuxuu ku yiri waxay tahay ilaahayow waxaad igu dhahday waxay tahay gabadhan inaysan waxba dhalaynin ee waa maxay sirta ku jirta ii sheeg كذب إلهي أيا أجواب وحوكو يغا متقانان وحوكو يغا وحيتها نبي موسى مغول بآن أقرى قبدا إني سنوح بدلينين وحيده جرتي إلهي يو متك النحريس بلانهو
isii ilmo kadib ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay naxariisteeda ayaa ka awood badatay awooddeeda naxariisteeda buu ilaah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay ayaa ka awood batay awooddeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala mid ka naxariis badan ma jirto walaalayaal wuuna jecel yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa shay muhiim hadda kadib inaan ku dadaalno ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin xifdiyo waan idin soo ducaynayaa in sha allahu tacaala idinkana ii duceeya allah ha idin xifdiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin xifdiyo wallahi aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin sida quruxda badan aad halkan ugu qayb gasheen jazaakum allahu khayra aad baa u mahadsan yahay sheekh abubakar jazaaka allah ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo dadweynaha reer muqdisho aad baan ugu mahad celinaynaa sida quruxda badan ay u soo ajiibeen munaasabadani waxaan codsanaynaa wiilasha siligan taagan inay fadhiistaan qaybtaas bannaan inay fadhiistaan si markaasi ay si fadhi markaasi ugu ajiibaan muxaadarada khayrka badan markaana hadduu allah awoodda liidmo waxaan u yeerayaa cumar maxamed cumar sheekh cumar baan soo dhowaynaynaa aan si qurux badan u soo dhowayno daawadayaal dadweynaha halkan jooga waxaan kaloo u faa'iidaynaynaa in uu idin yaallo buuggii ku raaxaysa noloshaada oo isla markaasna garoonka lagugu diyaariyey qofkii raba si qurux badan ayar adinkoon waxa weeye wax dhiba samaynin inaad si qurux badan u qaadataan buuggaas waa idin diyaar noloshiina wax badan ayuu faa'iido u leeyahay soo dhowow sheekh بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك اللهم أمسينا برحمتك نسألك اللهم أن تشرح صدورنا ولا ليال مركك واد سلامنتهن وحان إذن لا يهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaasi kadib walaalayaal xilliga aan ku sugannahay waa salaaddii casr waa maalin ilaahayna siiyey maalinta jumcada ah waa maalinta aabbahayna aadam calayhi salaam la abuurayey nebigana uu tilmaamay jumcada waxaa ku dhex jiro saacaddaasi ilaahay qof wax ma weyddiisto ilaa wuu ka ajiibaa waxayna culimmada u badiyeen waxay tahay inay ku jirto salaadda casr kadib wakhtigan oo kale ilaahayow hadalkaynu waad maqlaysaa meesha aan joogno waad og tahay qalbigeenna waxa ka guuxaya waad ka warqabtaa kama shakinayno shaki noogama jirto aragtida aadna arkaysid malaa'igtaada inay noo soo dhowaadeen ilaahayow waxaan kaa codsanaynaa sida halkan aan isku imaanay ummadda soomaaliyeed inay isku imaado ilaahayow kas ilaahayow waxaan kaa codsanaynaa magacyadaada wan wanaagsan nafsadahayna ayaan dulminay gacmahayna ayaan ku baabi'inay waddankayna dhibaato ayaan isku geysanay ilaahayow quluubteenna isku walaalay ilaahayow naga mid dhig walaalo ka shaqeeya dantooda fahmo wanaagga aa siisay ilaahayow waad inoo nimcaysay nimco kastoo wanaagsan waad ina siisay ilaahayow waxaad nagu abuurtay meesha ugu fiican adduunka ilaahayow naga mid dhig kuwa fahma oo garta nicmadan iyo khayrkan iyo wanaaggan aamiin ilaahayow meeshan waddankan aan joogno meel xun ma ahan waa meel fiican
laakiin annagaa gacmahayna ku baabi'inay ku xumaynay ku duduminay ku burburinay ilaahayow ha noo qabanin ilaahayow ha noo qabanin ilaahayow inta ku geeriyootay magaaladan ilaahayow waxaan kaa codsanaynaa magacyadaada wan wanaagsan ilaahayow qabrigooda u waasici jannadaada ugu abaalmari walaalayaal intaasi kadib hadda xilli aan halkaasi fadhiyey ayaan waxaan isweydiiyey maxaad dhallinyarada la wadaagi doontaa kadib ayaan waxaan soo xasuustay waxay tahay hal xadiid oo wallaahi noloshayna haddaan ku tabaqno noloshayna ay badbaadayso noloshayna haddaan la wadaagno ay badbaadayso xadiiskaasi waxay ku socotaa dhallinyarada waxaana hadlaya waa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay ku socotaa mucaad ibna jabal wiilkaa dhallinyarada ah nebigana uu dhahay sala allahu calayhi wasalam maalinta qiyaamo culummada oo dhan waxay feel iyo safka ay la geli doonaan wiilkaa dhallinyarada ah 33 jir asigoo ah ayuu geeriyooday xilliga nebiga uu leeyahay sala allahu calayhi wasalam wuu ka da'yaraa 30 jir muusan